وانت قالوا ميا والرجع هذاك محطوط الرجع هذاك حركة magaalada Burco oo ay xaalad culus ka soo korodhay ayaa maanta ardaydii maalintii labaad u fadhiisatay imtixaanaadka shahaadiga ayaa waxa la sheegayaa in hablo fasal ay maanta ku jireen imtixaanka ku galayeen ayaa macallinkii ilaalinayay oo ku adkeeyay ilaalada ay dabaq ka soo tuureen hablahan ayaa waxa la sheegay in ay ka cadhoodeen nidaamka uu macallinku u ilaalinayay imtixaanaadka ay ku jiraan macalinka ayaa laga soo waramaya xaaladiisu in ay adag tahay waqti xaadirkan oo uu kooma ku jiro gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo arintaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay dhacdooyinkaasi jiraan balse la xaliyay gudoomiyaha Daawud ayaa waxa uu yiri dhibo weyn oo la sheegay ma jiro waxaan meesha maraya la sheegay waxa weey hebel mobilka si iyo arday diido laga qaadi ma yiraahdo ardayda kala fasalka oo kacda marka waxa weey marmarka qaar kood waxa dhacaysa ardaydu deyn macallin adag oo jiro oo ma taqaana isaguna aan ku xadgudbin oo xilaalinaya ardayduna ay diidayaan ilaalinta la yar adkeyn oo dhacdaayna marka wax badan oo weyn lama jiraan mashaakilada waa Burco wax yar baa ka laga sheegay sayla wax yar baa laga sheegay wuxuuna wada xalismeen gabil ardaydana mid baan u sheegaya horta ardaydu waxa weey waxan waa mustaqbalkaaga 12 sano gacanta lagu soo hayay 12 kaaga sano inaad ku baabiisid mobilkan aan eegto hadaan eegan waa in rabshad baan sameeynaya adiga adeer kuma fiicna umadana uma fiicna waalidkana uma fiicna waxa weey annagana dardaarankii ugu badnaa in badan wasiirku tiifiyada uu ka yiri life-na uu noo yiraahdaa mar walba in caruurta loo naxariisto oo waliba ka xafiis imtixaan ahaan aan wax badan ma taqaana la dabciyo mar walba ka hadlaa waa caruurta yaan la cadaabin yaan la ciqaabin mana jirto marka waxa weey waxaan sanadka isir bedelkeed ardaydu ka faa'iideysanaya waxa weey oo jacayl waalidiinta u sheego ardaawul macallimiintooda caruurta ilaalinaysa sanadkan markii inagu caruurteena rabeen tayadii waxbarashada kor u qaadno ee dalka caruurteena aynu ka dhignay iyo waxay noo soo baxay dhakhtar tiito ku soo baxay engineer waa markii ugu horeysay ee arinta dhacdada noocan ah laga soo wariyo intii ay Soomaaliland ardaydeedu u fadhiisanayeen imtixaanaadka shahaadiga ah waana dhacdo ugub ah oo hadii talaabo laga qaadi waayo ardaygaasi dhabo ama wado u noqon doonta in ardaydu ay talaabooyinka noocan oo kala ay sameeyaan